kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group oo daalaba ka daawataan warbixinadii ugu dambeeyay ee fanka iyo suugaanta wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya ku soo dhawaada boggeena YouTube waxaan saami ku yeelan hargeyso samirkeeda midigta laga siiyo jabuuto sida fiican abadkeedu siraadan gaari soo sumadeena calankeeda la saaro jigjigo saban khayr leh rabigeedu siyaadsho muqdisho nabad suuban saldhigeeda ahaata fadlan daawaday haddii ay tahay markii kugu horeysay ee halkani aad soo boqotid ka mid noqo kumanaanka saaxiib ee boggeena YouTube ku taxan si aad u heshid warbixinadii ugu dambeeyay ee aan halkan soo gelino subscribe saaro gambaleel kana furo warbixintana maanta waxaynu ku eedegaynaa madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa aad iyo aad uga carooday warbixin qoraal ah uu boggiisa Facebook soo galay wariyaha BBC-da laanta afka Soomaaliga Cabdirasaaq Atoosh warbixintan ayaa waxay u qornayd madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka dalka Ingiriiska oo qaabilsan Soomaaliya Ambassador Ben Fender ayaa kulan ku yeeshay Hargeysa kulanka waxaa lagaga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dhinac ka dhaxeeya iyo arrimaha la xiriira dhinacyada amniga kobcinta iyo kor u qaadida warbixintani ayaa saameysay guud ahaan gayiga Soomaaliyeed gaar ahaan gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Hargeysa madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa ballan ku qaaday inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga soo jawaabi doonaan warbixintani isagoo sheegay in ictiraaf raadinta Somaliland ay dhanka koonfurta Soomaaliya wariyaasha ka soo jeeda ay aad u liidayaan sidaan wada ognahay maamulka Somaliland wuxuu muddo ka badan 30 sano uu raadinayay ictiraaf uga go'ay shanta Soomaaliyeed waxa beejkan leegta kala laabtay 100,000 oo qof oo ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliya warbixinta ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan intaan mid ka xiiso badanna ku kulmi doono daawadayaal waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.